mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle State ayaa caawa fiidkii hore doortay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle State waxaana xilka gudoomiyenimo isku soo sharaxay Abuukar Xasan Cali Maqanay iyo Sheekh Ismaan Barre Maxamed iyadoona howlka ay codeyntu ka dhaceysay gudoonka baarlamaanka Hirshabelle State oo ka socotay uu goobjoog ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari iyadoona ugu dambeyn uu xilka gudoomiyenimo ku guuleystay Sheekh Ismaan Barre Maxamed gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle State Abuukar Xasan Cali wuxuu helay 28 Ismaan Barre Maxamed wuxuu helay 61 waxaan rabaa marka hore ilaahay mahad celiyo marka labaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo xildhibaanada maamul goboleedka Hirshabelle kuwii doortay iyo kuwii aan codkiisinba labadaba waxaan rabaa inaan mahad celiyo aad iyo aad mahadsantihiin soo kaymiyaatihiin aad iyo aad aan u faraxsanahay aniguna waxaan goyn doonaa xilkayda si waafaqsan dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kan qaranka iyo shuruucda caalamiga ugu dambeyn ayaa waxaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle State la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari in aan warqadaasi meesha xildhibaanku uu ku diray iyo qofka magaciisa aan la isku soo xiri karin ayaa sirta hadda 28 qofood baa u codeysay hal mashruuc kulli lixdana waxay u codeysay musharax kale gudoomiyaha baarlamaanka sababta looga dhigay codkiisii inuu sir ahaado waxa weeyaan in uu baarlamaankaasi ama xildhibaanadaasi uu ahaado dhexdhexaad uusan ogaanin yaa uu codeeyey ayaana ka codeeyey sidoo kale madaxweynaha marka la dooranayana sidaa oo kale maadaama la doonayo inuu madaxweynuhu waxaa ummadda dhan inuu dhexdhexaad yahay gudoomiyaha baarlamaankana sidoo kale ummadda shacbiga iyo xildhibaanada inuu dhexdhexaad u yahay ayaa laga maarmaan taas ayaa ka dhigtay inay sir noqoto Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowhar.